gudoomiyaha gobolka Saraar iyo xubno uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray deegaano badan oo hoos yimaada degmooyinka Waridaad, Ceelal iyo Dhanaano, taasi oo ay gaarsiiyeen 100 booyadood oo biyo ah kaasi oo ay bixisay dowladda Soomaaliland. Wafdiga gudoomiyaha waxaa ku weeliyay Suldaan Cabdiraxmaan Qodax Jaamac, Chief Caaqil Cali Xirsi Axmed, maayirka degmada Ceelal, Salabaan Xasan Seef iyo xubno kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn barasaabka gobolka Saraar Professor Ibrahim Xaaji Xasan Cali ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyay, wuxuuna xusay deeqda degdega ah ee xukuumaddu soo gaarsiisay, taasi oo uu tilmaamay inay dhammaan $15,000 ayna u kala qaybiyeen 2 jiidood oo kala Cayn iyo Saraar oo la kala siiyay 8,000 oo Saraar ah iyo 7,000 oo Cayn ah. wuxuuna intaa ku daray gudoomiyuhu inay dhammaanba jiidaha loogu talagalay ay si toos ah u gaareen. shacabka gobolkaba waxa aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa deeqdan naga soo gaadhay xukuumadda Soomaaliland ee ah biyaha ayaan aad ugu mahadnaqaynaa. transparent bay ahayd ilaa intay ka soo baxaysay guddida horumarinta guddida abaaraha intay ka soo baxaysay heer wasiir markay soo martay markii ay heer gobol soo gaadhay haddeer aanu heer degmooyin u daadejinay. mar walba waxay ahayd wax transparent oo shafaafa oo wada muuqata oo $15,000 baa gobol ahaan soo gaadhay. waxaan u qaybinay 2 jiidood oo gobolku uu qaybsan yahay Saraar iyo Cayn, qaybna 8,000 oo ayaana qaybta Saraareedna la siiyay oo abaaro ku sii badnaayeen iyo biyo la'aantu. qaybna Caynna waxa la siiyay 7,000. qol walba oo sii qaybinay si cadaalad ku jirto oo ayaan u qaybinay. marka halka Saraar ilaa 60 booyadood meelaha ay ku gaadhay 8,000 marka la siiyay, Caynna inaha in leeg bay marka runtii u gaadhay. marka taqriiban 100 booyadood yani marka biyo ka badan ayaa gobolka gaadhay. waxaan rajaynaynaa 3 maalmood soo socda inay soo gabagaboobaan gaaritaanka biyahaas oo ay meel walba gaaraan oo gobolka ka mid ah. magaalooyinka gobolka ka mid ah biyahaas aan gaarina ma jiraan. aag wal oo la degan yahay intooda badan waa la gaarsiinayaa. waxa weeye baahida ay daboolayaan laakiin way kooban tahay. baahida ay runtii daboolayaan aad bay u kooban tahay. waxaan rajaynaynaa wixii kale ee dadka lagu taxafulaynayo xukuumad ahaan ee awood u hesho in ay runtii ay soo gaarsiiso, xukuumaddu soo gaarsiiso. waxaan ognahay in xukuumaddu dadaal badan wado oo shirar badan qabatay oo guddiya samaysay oo cid walba la xidhiidhay oo intii itaalkeeda ay runtii ay aad iyo aad u dadaashay. waxa loo baahan yahay dadaalkaasi inuu sii socdo ayaa loo baahan yahay. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadaalka xukuumaddu ay samaysay. aad iyo aad baan gobol ahaan ugu mahadnaqaynaa. waa idin salaamaya. Suldaan Cabdiraxmaan Qodax Jaamac ayaa isna dadka ay abaaruhu saameeyeen ugu duceeyay in Ilaahay ka dulqaado abaarta saameysay, wuxuuna xusay inay istaakuleeyaan walow ay jiraan deeq gaadhaysa 100 kiish oo raashin ah oo ay quuteen ama loo qaybiyay 200 oo qoys oo ka soo barakacay deegaamada hoos yimaada degmada Caynaba, taasi oo ay iska ururiyeen dadka hantida haysta ee degan magaalada madaxda gobolka Saraar ee Caynaba. ilaahadow wax walba adaa og, wax ka qarsoon ma jiraan. khalqigaagii iyo bahaa'imkaagii sida aad ogtahay ee u arkayso ayaa ka dhaba oo ka asala. ilaahayow raxmad sariica baanu kaa baryaynaa. ilaahayow raxmad sariica baanu kaa baryaynaa. ilaahayow raxmad sariica ayaanu kaa baryaynaa. ilaahayow amni iyo iimaan ayaanu kaa baryaynaa. ilaahayow naxariis iyo nabadgelyaanu kaa baryaynaa. intaa waxaan ku darayaa halkaa imika waxa taagan 7 booyadood oo dee laga warramay. 7 booyadood ilaa waxay ka mid yihiin 60 booyadood oo aaggaa Saraar la yidhaahdo ee macruufka ah. 60 booyadood oo u kala baxaya ayay ka mid yihiin. biyay sidaanay dadka iyo dhulka biyaha loo sidaa waa biyo ومن الماء جعلنا كل شيء حي. waa inay 2 maalmood waraabiso mooyaane dee waa la iska qiyaasayaa masaafada ballaadhkaa leh inay dadka afkooda waraabiso. xoolihii dee markay xoog ahaayeen meel walba waa u biyo doonin jireen, meel kastaba ha noqotee. waa daayeen, socodkii way daayeen. waxay noqotay in halkaa ay gobolku ugu dhacay waagu ugu beriyo wixii Ilaahay ka reebo oo la sugo. Ilaahay waa arkayaa. waxaanu tilmaamaynaa marka ugu horeysa
guddidii abaaraha loo magacaabay ee madaxweyne ku-xigeenku uu guddoomiyaha ka ahaa wixii aa u soo dhiibteen gobolka Saraar la yidhaahdo labadii wasiir ee aa u soo xil saarteen waa keeneenay waa lagu mahadsan yahay ciddii kasta ee ka talisay iyo ciddii kasta ee ka howlgashayba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin guud ahaan xukuumadda madaxweynaha aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaanu xusuusinayn oo aanu qaylo dheer ugu dhawaaqayna ugu qaylinaynaa dad iyo dunyaba waxay u baahan yihiin gurmad ayay u baahan yihiin gurmad biyo iyo baadba ayay u baahan yihiin intani waxba kama aha intaa maanta halka kan ka fushay waxa laale waxay ka tahay ma jirto ha lagu darsado talada haddii maanta 2,000 oo booyadood la isdaba dhigo waxba kama aha iyadoo dumar tahay intaas ka hadhay habeen walbana waa baqtiya aduu ka warbixi labadii tiro habeenkii walba waa baqtiya sidoo baqtiyay xafadan ku soo xirano waxaan dhigayaan haraad u baqti marka halkan ku soo hoy de waa xafadan waa xafad halkan ku soo xiriyay xafada waa la jiida habeenkii yoomay wax la jiida shana mad maxaa jiida dawa madale baka waa maxaa jiida waa ka habeen jiida waa baraka habeen jiida haddaba arrimahan ayaa dhammaantood kusoo beegmaya xilli ay dhammaanba gobollada bari ka jirto abaaro ba'an walow ay gobolka Saraar u yahay kan ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen waxaana ay xukuumadda Soomaaliland wadaa dadaal dheer oo ay ugu gurmanayso dadyowga ay abaaruhu isugu darsameen biyo la'aanta baad la'aanta iyo xoolaha oo marba marka kasii dambaysa bilaabaya inay dhintaan. Maxamed Aadan Dirir, Saraar Media Live TV.